Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Cashirkan waxaan ku baranaynaa waxa loo yaqaano faleebooyinka ama intravenous fluids. Wuxuu ahaa su'aal muxuu ahaa cashirkii kan ka horeeyey. Waxaan ku baranay maintenance fluid oo dadka adultiga ah. Marka dadka adultiga ah haddii oo muxuu ahaa faleebooyin ay u baahan yihiin oo maintenance fluid ah, kaasoo noqon kara in oo jiro ay u imaato oo degdeg ah, ama qofka dhaawac soo gaara, ama qofka haddii uu gubto, ama infection haddii uu qaado, sabab walba ay imaato in uu qofka ugu baahdo muxuu ahaa faleebooyin. Compensation code waxaa ay ka kooban yihiin, kaasoo noqon kara marka faleebo oo qofka degdeg ugu baahan yahay, oo markaas oo si oo resuscitation loogu sameeyo oo naftiisa lagu badbaadiyo, ama in maintenance fluid oo laga wado in qofkaas uu jiran yahay oo wax uusan qaadan karin, oo bedelkiis maadaama biyo uusan cabi karin loogu bedelayo. kaasi marka waxaa loo yaqaanaa maintenance fluid. Marka waxaan ku baran doonaa faleebooyinka noocyada ay kala yihiin, iyo talooyin guud ahaan oo ku saabsan faleebooyinka, oo sanooyinkan dadka ay si qaldan u isticmaalaan, ayagoo xitaa aan u maleynin inay daawooyin yihiin, oo ay noqotay wax oo fashion oo kale ah. Gaar ahaan muxuu ahaa Soomaaliya, oo qof walba oo faleebo isku suraayo, wax reason oo qofka u baahan yahay in aysan jirin, sababtoo ah haddii qofka biyo uu cabi karo oo qof fiyo uu yahay, haddii galaas biyo aa cabtid, calooshaada waxay ku qaadanaysaa 15 minutes inuu jirkaa ku galo biyaha. Marka ma jiro sabab qofka uu faleebo iskugu suro qof fiyow oo biyo cabi kara. Marka haddii biyo aa cabtid iyo haddii faleebo aa isku surtid, macnaha waxaa u dhexeeya minitiyaal heerka uu gaari karo dhiigaaga halis zaa'id ah ayay noqonaysaa in oo IV fluid qofka isku diro oo uu leeyahay energy aan ka helayaa. Waxaa lagu qaatay adoo oo koob biyo soo qaadatid oo hal qaado oo sokor ku dartid oo cabtid, waa isku mid. Marka kaas waa kaga hadli doonaa. Marka daawooyinkan marka oo faleebooyinka ah waxay ku imaadaan noocyo aad iyo aad u tiro badan. Noocyada ugu badan ee la isticmaalo waxay tahay 0.9% oo sodium chloride ah. 0.9% sodium chloride waana aad iyo aad raqiis u ah, faleebadan ugu raqiisan adduunyada. Sidoo kale waxaa jira glucose oo 5%. macnaa glucose 5% waxaa laga wadaa in 5 gram uu ku jiro boqolkii milliliter. Sodium chloride 0.9% wuxuu la mid yahay in 0.9 gram uu ku jiro boqolkii ml. Sidoo kale Hartmann solutions, macnaa compound sodium lactate waxaa loo yaqaanaa Hartmann's, asagana wuxuu la mid yahay muxuu ahaa plasmaha oo xididdada dhiigga concentrationka electrolyte ku jira, oo sida sodium ama potassium ama bicarbonate ayuu la mid yahay. Marka noocyo aad iyo aad u tiro badan ayaa jiro, farqiyo badan oo u dhexeeyana runta ah ma jiro. Dadka anesthetistiga ah, dhakhaatiirta anesthesia waxay aad u jecel yihiin compound lactate, sababtoo ah wuxuu aad iskugu dhow yahay plasma. Laakiin haddii sodium chloride ay haysatid, qofka waa ku badbaadin kartaa haddii u baahan tahay. Waxaa loo yaqaanaa resuscitation, oo ah haddii qofka blood pressurekiisa aad iyo aad u hooseeyo, waxba isku murjirin nooca isticmaalaysid, waa inaa isticmaashaa sodium chloride 0.9%. waa faleebada ugu raqiisan, meel walbana taala, oona resuscitation ku fiican, sababtoo ah markii qofka xididka laga siiyo waxay macnaa volume badan oo ka mid ah wuxuu dhex joogi doonaa intravascularka, oo aan ku baran doono cashirka qaybtiisa dambe. Marka waxaa jira noocyo kale marka oo loo yaqaano colloid, oo sanooyin ka hor aad iyo aad loo buunbuunin jiray, oo xayeysiis badan loo sameeyey, oo aan ahayn noocyadan oo electrolyte ku jira. Macnaa kuwaan waxaa ku jira sodium ama muxuu ahaa glucose ama muxuu ahaa potassium, macnaa Hartmann's, ama sodium iyo dextrose oo isku dhex qasan, oo macnaa ku imaan kara concentration yaal kala duwan, 0.5% iyo 5%, 0.18% iyo 4% glucose oo ku imaada. Macnaa wuxuu ku imaadaa noocyo aad u tiro badan. Marka dhowr sano ka hor, 15 sano 20 sano kahor, waxaa aad loo xayeysiinaya marka kuwa loo yaqaano colloid. Colloid marka ma ku jiro electrolyte, waxaa ku jiray albumin oo kale, macnaa borotiinkan oo dhiigga ku dhex jira albuminka ah, ama starch ama dextran. Marka fikirkan wuxuu ahaa colloid waxaa ku dhex jira borotiino waaweyn oo aan ka dhex baxaynin xididdada dhiigga. Marka haddii qofka colloid lagu diro, waxay dooda ahayd inuu dhiig muxuu ahaa faleebadaas ay badanka dhex joogi doonto intravascularka. Muhiimada kaas gadaal noogu imaan doonaa. Si ay ahaato marka colloidka, hadda evidence badan waxaa la helay inaysan wax faa'iido soo kordhinaynin, oo sodium chloride oo 0.9% oo raqiis ah uu sameynayo shaqada oo colloidka uu qabanayo. Marka lacag badan oo colloid lagu bixiyo
faa'iido inaysan soo zaa'idinaynin oo halis ay keeni karta in oo qofka allergic reaction uu ka qaado oo muxuu ahaa anaphylaxis inay ku dhacdo. So marka haddaan hore usii socno IV fluidska marka faleebooyinka waxaa loo baahan karaa si ku meel gaar ah haddii qofku wax uusan cabi karin, haddii qofka dhaawac uu soo galo oo kale, haddii qof uu gubto oo kale, haddii qofka infection uu ku dhaco sepsis, haddii qofka qaliin uu galo oo wax uusan qaadan karin oo uu u baahan yahay maintenance fluid, haddii qofka diabetes acidosis ama nooc walba oo jiro ah noqon karta ama pancreatitis, waxaana any jiro oo keenaysa qofka inuusan afka wax ka qaadan karin. Xataa wuxuu noqon karaa stroke, haddii qofka stroke uu ku dhaco oo wax uusan liqi karin waxay noqonaysaa in oo laga siiyo muxuu ahaa maintenance fluid, iyo in quudinta xataa la sameeyo ilaa oo calooshiisa qofkaas tubo laga gelinayo. So marka saan arkayno asbaabo badan ayaa keeni karta in qofku u baahdo maintenance aan dhahnay IV fluid ama faleebooyin oo cusbo ama sokor qofku u baahnaanayo. laakiin tan muhiimka waxay tahay dadka inay gartaan ama haddii qof aawaninaysid ama la talinaysid in oo fluidskan ay yihiin daawooyin. macnaa hadda waxaa yaab kale waxay tahay in dadka badankiisa aysan u arkin faleebooyin inay yihiin daawooyin oo ay u arkaan inay biyo yihiin oo isku duri karaan. So marka waa qalad. faleebooyinkan waa daawo oo qofka haddii u baahan yahay oo kaliya macnaha oo lagu duri karo oo qof aan u baahnayn ay qalad tahay in lagu duro. ma jiro wax oo macnaha loo samayn karo cudurdaar qof fayow oo biyo cabi kara oo socda in faleebo lagu suro. macnaha reason ama justification oo jira adduunyada ma jiro nidaamkaas ama dhaqankaas. marka waa dhaqan aad iyo aad u qaldan oona halis ah oo keeni kara qofka xataa infection uusan ku talagalin inuu ku qaado ama inuu isku badiyo muxuu ahaa electrolytekiisa oo qalqal uu galo haddii uu qaato faleebooyin oo asagoo gurigiisa jooga oo qof u wacdo oo uu leeyahay faleebo igu sur energy igu yar. so marka waa practice oo dangerous ah, wax justification uusan jirin oo halis qofkaas u keeni karta maadaama aysan ahayn dad expert macnaha oo meel cisbitaal uusan qofkaas joogin oo gurigiisa soo jooga oo isku duraayo muxuu ahaa faleebo halis weyn u keeni karta in electrolytekiisa oo qalqal ay gasho, in oo muxuu ahaa biyo ay u fariisaan sababada dhibaatooyin badan ay u keeni karaan. marka waa fashion oo aad iyo aad halis u ah oo qofka naftiisna halis u keeni karta oo ay tahay halis qofkaas uu macnaha isku keenayo oo wax reason ama justification uusan jirin. haddii biyo badan qofka aad ku durtid faleebooyin badan, hadda waxaa dadka qaar cisbitaalka ku jira oo xataa si qalad loo siiyo faleebooyin badan oo aan qofkii lagu samaynin assessment. macnaa qofkan ayaa u qoraayo, qof kale ayaa u qoraayo, qof kale ayaa u qoraayo. waxaa laga yaabaa qofkii 6 litir ama 7 litir maalintii inuu qaato oo muxuu IV fluid ah. taas waxay keenaysaa xaalad halis ah oo loo yaqaano pulmonary edema oo ah in samabada u fariistaan biyo oo aad iyo aad u adag tahay in laga soo saaro. saas waxay noqonaysaa marka qofkaas inuu u baahdo in intensive care unit la seexiyo. waxaa laga yaabaa inuu u baahdo dialysis si loogu saaro muxuu ahaa excess macnaha fluidka. wuxuu u baahnaanayaa macnaha high potency oo diuretic in oo dhacaanka laga saaro. so marka saa arkayno in biyo qofku isku shubo xididkiisa aad iyo aad ay u fududahay, laakiin jirkiisa in laga soo saaro way adag tahay. so marka haddii qofka pulmonary edema isku keeno waxay noqonaysaa in oo intensive care unit la seexiyo oo dhibaato weyn oo dialysis u baahdo. so marka waxaa muhiim ah in qofku uu xasuusnaado IV fluidka inay yihiin daawo. haddii aadan aqoon u lahayn qof senior ah la kaasho oo weydii equationka oo la isticmaalayo si loo isticmaalo si xigmad ay ku jirto. so marka si normalka ah plasmaha oo dhiiggeena caadiga ah waxaa ku jira waxyaalo badan oo ku dhex milan sida oo sodium oo kale, waxaa ku dhex milan potassium, waxaa ku dhex milan bicarbonate, waxaa ku dhex milan chloride, waxaa ku dhex milan calcium, waxaa ku dhex jira proteinal aad u tiro badan. so marka concentrationka oo plasmaha oo electrolytekan meeshan oo normalka meeshan ku arkaynaa sodium waxaa ku jira 142 millimol, potassium waxaa ku jira 4 millimol. sababtoo ah potassium badankiisa waa waxa loo yaqaan intracellular, kaasoo macnihiisa ay tahay concentrationka ugu badan potassium jirka ku dhex jira wuxuu dhex yaalaa muxuu ahaa unugyada dhexdood ma dhex yaalo xididada dhiig. saa arkayna marka xididada dhexdood waxaa ka buuxa potassium sababtoo ah waxaa ku jira unugyada muxuu ahaa membrane code macnaha pump oo soo saaraya potassium banaanka soo saaraya. taas waxay keenaysaa marka in dhiig uu ka buuxo sodium laakiin uu ku yiraahdo potassium sababtoo ah potassium waxay dhex taalaa unugyada dhexdooda. sidoo kale bicarbonate normal waxaa waaye 26 millimol, chloride waxaa waaye normal
103 millimol per liter iyo calcium. sidoo kale marka pH-ka oo jirka pH waxaa waaye acidity-ga jirka waa wax aad iyo aad si tight ah loo regulate gareeyo sababtoo ah haddii pH jirka uu isbedelo dhibaato weyn ayay keeni kartaa. haddii qofka pH-kiisa uu kor u kaco wuxuu noqonayaa alkalosis, haddii hoos u dhaco wuxuu noqonayaa acidosis. haddii qalqal uu galo nidaamkaas homeostasiskana waxaa dhacaya in qofkii enzymyaalkiisa iyo proteinyaalkiisa ay shaqeyn waayaan oo qofkii coma uu galo oo u dhiman karo. that's why marka jirka wuxuu leeyahay nidaam loo yaqaano buffer system. bufferkaas oo laga wado in bicarbonate loo isticmaalo iyo carbon dioxide. qofka markii uu neefsanayo carbon dioxide ayuu banaanka u bixinayaa, kalyahana waxay sameynayaan bicarbonate. so marka jirka wuxuu ismeysaya marka sida miisaan oo kale, oo haddii oo muxuu ahaa uu bato muxuu ahaa acidity jirka ku jira oo enzymes ayaa jira oo aciditygaas oo u bedeli kara carbon dioxide oo qofka neeftur u badinayo oo lagu yareynayo muxuu ahaa oo lagu badinayo pH-ka. haddii pH hoos u dhacan waxaa la sameynayaa bicarbonate badan oo kalyaha ay soo sameynayaan si jirkii uusan u noqonin muxuu ahaa alkalosis iyo muxuu ahaa acidosis. so marka fluidskaas oo aan soo sheegnay xashirka markaan ku bilaabayna laba nooc ayaa loo kala qaybiya marka qaar kuwana loo yaqaano crystalloid iyo colloid. crystalloidka marka waxaa waye kuwan caadiga oo la isticmaalo macnaa dextrose 5% ama 4%, Hartmann solution ama compound lactate solution oo aan soo aragnay, iyo sodium chloride oo loo yaqaano macnaa normal saline 0.9% sodium chloride. colloidka marka wuxuu ku jiraa marka protein, dextran, starch, dhiig hadii qofka lagu shubo hadii qofka dhaawac soo gaaro oo kale wuxuu u baahnaanaya, ama qofka hadii uu dhiig baxaayo oo gastric ulcer oo kale oo qofka ku dhaco wuxuu u baahnaanaya in infusion lagu sameeyo dhiig. laakiin review oo excellent ah oo ay sameysay Cochrane waa muxuu ahaa review macnaha ay sameeyaan oo evidence based ah. haddii interest ku tahay waxaa ku qori kartaa crystalloid versus colloid, google ku qor Cochrane review. waa review excellent ah oo isbarbardhigaya colloidka iyo crystalloidka faa'iidadood iyo muxuu ahaa benefit riskiga oo u dhaxeeya. wuxuuna reviewgan marka oo Cochrane ay ku sheegeen wax faa'iido ah oo colloidka inkastoo qiimahood uu aad iyo aad qaali u yahay, wax faa'iido dheeraad ah inaysan ku jirin oo ay la mid yihiin kuwan oo crystalloid. so marka arkay marka 0.9% sodium chloride ama Hartmann solutions si isku mid ah ayay macnaha jirka ugu sameynayaan resuscitation. so marka waxa muhiimka ah oo aad iyo aad muhiim u ah qofka physiologigan inuu fahmaya waxay tahay isku xidhnaanshaha macnaha diagram oo ma aha oo macnaha oo jirka qaabka u samaysan yahay, waa wax aan ku iftiiminayna oo kale diagram ahaan si aan ku fahno. meeshan waxaa xididada dhiigga oo u dhex joogo muxuu ahaa macnaha vascular space-ka fluidka ku jira ama dhiigga waxaa loo yaqaan marka plasmaha. waxaa u dhexeeya plasmahaas xididada dhiigga iyo unugyada dhexdood intervascular space ama interstitial space, macnaha space oo u dhexeeya xididada dhiigga iyo unugyada. marka waxaa jira inay isku furan yihiin plasmaha iyo extracellular space, macnaha waxaa u dhexeeya membrane oo capillary-ga ah, laakiin waxa fluidka oo ku jira plasmaha wuxuu u gudbi karaa extracellular fluid. intercellular fluid-kane waa u gudbi karaa ayadoo ku xiran concentration difference-ga oo u dhexeeya extracellular fluid space macnaha extracellular space-ka iyo intercellular space-ka concentration-ka u dhexeeya macnaha concentration aan ku wadno waxyaalaha oo ku dhex jira inuu inta ku badan yahay intana ku yar yahay, ama inuu inta ku badan yahay inta uu ku yar yahay. meesha uu ku yar yahay marka ayuu aadaa oo meesha wax badan uu yaalo ay ku gudbaan. so marka haddii marka oo dhiigga xididada waaweyn ee dhiigga hoos u dhaco blood pressure macnaha taas waxay la mid tahay qofkii haddii uu dhiig baxayo oo kale, ama haddii qofka sepsis uu qaado oo kale, ama anaphylaxis reaction. taas waxaa dhaxaya in oo waxyaalihii oo plasmaha pressurekiisa hoos u dhaco macnaha xididada inta fluid oo ku jira ama dhiig ku jira pressurekiisa hoos inuu u dhaco. so marka taas waxaa muhiim ah marka qofkii in faleebo la siiyo ama dhiig la siiyo. so marka su-aasha aan isweydiinayna waxay tahay maadaama oo meelahan ay sameynayaan equilibrium macnaha way isweedaarsanayaan fluidyaasha extracellular fluidka, intercellular fluidka iyo plasma, waxay ku xiran tahay oo kaliya concentrationka oo waxyaalaha oo faleebada ku dhex jira oo qofka aad siinaysid. waxaa dhici karta marka haddii faleebo oo concentrationkeed uu yaryahay, concentration waxaan ka wadnaa inta plasma ku jira oo electrolyte ah, haddii waxa faleebada ku jira uu ku yaryahay taas waxay noqonaysaa marka in biyihii ay u gudbaan
extracellular fluidka iyo intercellular fluidka oo qofkii blood pressurekiisa kor uusan usoo kici karin soo marka waa arrin aad iyo aad muhiim u ah haddii marka qofka aad siisid for example had 5% oo sodium chloride 5% oo glucose oo kale 5% glucose wax sodium ku jira ma laha glucose isla markii jirka uu dhadhamiyo ama uu dareemo isla markii insulin ayaa soo baxaysa oo gudaha u gelinaysa ICF ama intercellular fluid macnaa intercellular space ayuu aadayaa ee glucose maxaa dhacaya meeshaan 1 liter oo biyo ah oo wuxuu noqonayaa oo muxuu ahaa oo tonicity waxay tahay inta concentration oo biyo inta ku jira taas waxay keenaysaa marka waxay biyo oo vascular space ka ku shubtay kulligood inay u gudbaan extracellular space-ka kadibna usii gudbaan intercellular space-ka marka haddii qof marka resuscitation u baahan yahay oo maxna qofka blood pressure-kiisa aad iyo aad hoos ugu dhaco waxaa muhiim ah in la isticmaalo Hartmann solutions ama normal saline oo laga wado sodium chloride oo 0.9% oo meel walba yaalo oo raqiiska ah oo san u baahnayn qofkaas 5% glucose in la siiyo taas cagsigeed waxay tahay haddii qofka maintenance fluid uu qaadanayo macna waa qofan u baahnayn resuscitation macna qofka blood pressure-kiisa hoos uusan u dhaxin laakiin isbitaal ku jira oo jira kala qaba oo afkan waxaan ku qaadan karin oo u baahan waxay biyo uu cabi lahaa uu baahan yahay in lagu sii falay baahan 5% glucose waa excellent sababtoo ah markii 5% glucose patient aad ku shubtid wuxuu u gudbayaa extracellular space-ka iyo intercellular space kaasoo ah wax aan rabno sababtoo ah waxaa la rabaa in oo dehydration uusan ku dhacin unugyadiisa gudihiisa marka mid walba waxaa jira waxa uu ku fiican yahay haddii qofka marka oo resuscitation u baahan yahay waxaa muhiim ah in la siiyo Hartmann iyo sodium chloride haddii qofku u baahan yahay maintenance fluid waxaa muhiim ah in oo sodium chloride ama Hartmann iyo glucose 5% ama 4% laysku daro macna in oo 1 liter oo glucose la siiyo iyo 2 liter oo sodium chloride ama taas muxuu ahaa vice versa macna cagsigeed soo marka waxaan arkaynaa marka haddii sodium chloride aan siino ama Hartmann waxaa kor usoo kacaya blood pressure-ka inuusan badanaa u gudbaynin ee muxuu ahaa extracellular space-ka intercellular space-ka taas cagsigeed haddii qofkii marka oo resuscitation u baahan ah siisid glucose 5% waxaa dhacaya in uusan qofkii blood pressure-kiisa kor usoo kicin oo u gudbo ee muxuu ahaa extracellular space-ka iyo intercellular space kaasoo marka space-ka u dhaxeeya ee intercellular-ka macnaa unugyada iyo xididada dhiigga space-ka u dhaxeeya ayuu aadayaa iyo unugyada dhexdood ayuu aadayaa uu u gudbayaa marka mid walba waxaas ayuu ku fiican yahay marka qofku waa inuu ku fikiraa haddii qofkan aan sii faleebadan oo noocan ah intuu aadi doonaa dheecankaas haddii qofka naftiisa aad badbaadinaysid oo blood pressure-kiisa aad hoos u yaalo isticmaal sodium chloride 0.9% ama Hartmann solutions kaasoo keenaya in oo volumeka badankiisa uu dhex joogo xididada waaweyn kaasoo kor usoo kicinaya blood pressure-ka oo ah waxa aad rabtid oo qofkaas si noloshiisa ay ku badbaado soo marka waxaan arkaynaa marka haddii hadda meeshan aan fiirin Hartmann solution oo kale iyo muxuu ahaa iyo sodium chloride oo kale haddii qofka aan siino waxaan arkaynaa in oo macnaa 25% oo Hartmann solutions iyo sodium chloride oo 0.9% ah waxay dhex joogayaan intervascular space-ka macnaa xididkii dhexdiisa ay dhex joogayaan macnaa 25% 75% wuxuu u gudbayaa extracellular space laakiin 25% volume ee wuxuu dhex joogayaa intervascular space ama xididada dhexdooda halka sodium chloride aan dhahnay glucose 5% ama glucose 5% hadii qofka uu siiyo resuscitation wax ka yar 10% macnaa 7% oo kale ayaa dhex joogaya xididadiisa arkayna marka waa difference aad iyo aad u dhaxayna soo marka haddii qofka pressure-kiisa aad kor usoo kacaysid waxaa muhiim ah isticmaal crystalloid oo 0.9% normal saline ama muxuu ahaa Hartmann solutions oo la mid ah muxuu ahaa macnaa osmolarity oo wuxuu leeyahay sida oo plasma oo kale sidoo kale waxaan arkaynaa marka isbarbardhig haddii aan sameyno muxuu ahaa dhowr faleebooyin kan waxaa waay normalka oo plasma oo dhiiga caadiga ah ee concentrationka electrolyte oo ku jira oo sodiumka iyo chloride-ka gaar ahaan sodium waxaa arkaynaa inuu ku jiro 142 millimol per liter sodium chloride 0.9% macnaa faleebadan oo normal saline loo yaqaano oo meel walba yaala waxaa ku jira 150 millimol sidoo kale Hartmann waxaa arkaynaa inuu ku jiro 131 millimol per liter soo marka waxaa arkaynaa Hartmann solution iyo plasmaha macnaa dhiiga caadiga ah ee electrolyte inta ku jirta oo sodiumta ah inuu aad iyo aad iskugu dhow yahay si la mid ah 0.9% oo sodium chloride waxaa arkaynaa inuu aad iskugu dhow yahay soo marka saddexdan waxay aad iyo aad ugu fiican yihiin resuscitation qofka haddii lagu sameynayo taas cagsigeed aan la barbar dhigno
sodium chloride oo waxaa jira ku imaanaya 0.18% iyo glucose 4%. So waxaa arkaynaa marka in soddon oo kaliya uu ku jiro 30 millimole. taas waxay la mid tahay inuusan ku fiicnayn qofka resuscitation in lagu sameeyo. sidoo kale haddaa la barbar dhigtay sodium chloride 0.45% iyo glucose 5%. so marka waxaa arkaynaa inta concentration oo sodium oo ku jirta falebooyinka inay aad u kala duwan yihiin oo kuwa qaar aysan ku fiicnayn resuscitation oo taasoo macnaheeda ay tahay in blood pressureka haddii hoos uu yahay kor aysan usoo kicinaynin oo u gudbayaan extracellular spaceka iyo intercellular spaceka kaasoo marka aan ku fiicnayn resuscitation. sidoo kale haddaan fiirin hadda potassium concentrationkiisa plasmaha macnaa dhiiga caadiga waxaan arkaynaa concentrationka xididada inay ku jiraan 4.5 millimole per liter oo potassium ayaa ku jira. sodium chloride 0.9% waa zero, wax potassium oo ku jira ma laha. laakiin Hartmann waxaa arkaynaa inuu ku jiro 5 millimole taasoo marka u dhow ama la mid ah muxuu ahaa plasma. that's why marka anesthetic aad u jecel yihiin Hartmann inay isticmaalaan sababtoo ah concentrationka oo electrolyte oo ku jira Hartmann iyo plasma ay aad iskugu dhow, bicarbonate ahaato ama calcium ahaato ama sodium ahaato ama chloride ahaato. that ay marka ku jecel yihiin oo saacidaysa in qofkii oo haddii qariin qofku uu ku jiro oo kale in oo resuscitation fiican uu sameeyo.